grammar qaybtani waa qayb grammar oo muhiim ah waa qaybtani passive voice ka dhismaha codka maldahan passive construction oo passive voice codka maldahan ama dhismaha codka maldahan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Grammar qaybtani waa qayb grammar oo muhiim ah waa qaybtani passive voice ka dhismaha codka maldahan passive construction oo passive voice codka maldahan ama dhismaha codka maldahan tenniskii afaraad ee passive waxaa la yiraahdaa simple past tense tagtada dhacday waa tenniskii afaraad passive marka la isticmaalayo waxaan soo qaadanay saddex present simple present present continuous iyo present perfect tense saddexdaas waa saddexda present laga qaato present perfect continuous tense passive construction looma isticmaalo so the fourth one midka afraad waxaa la yiraahdaa simple past tense tagtada dhacday passive construction dhismaha codka maldahan oo passive voice ama codka maldahan formation oo structure-ka ku shaqeeyo qaacidadiisa ku hormaray subject markaad hesho waxaan qaadanaynaa was ama waa balaas waxaan raadinaynaa past participle mar walba waa daruuri laga maarmaan in la helo past participle ama present ahaado ama past ahaado ama future ahaado balaas by plus object ayaan helinaa passive voice ayaan ku bilaabay I was helped waa li caawiyay meesha anaga markaa asaga I was helped haddii uu qofku yiraahdo ama adigoo codkaas ku hadasho waxaad ogaanaysaa inaad tahay qof la caawiyay ee adigu wax ma aadan caawinin sida dadka inta badan u fahmaan I was helped waa li caawiyay ciday doonta ku caawiso by him I was helped by him saga ayay caawiyay ay noqonaysaa ama I was helped waa li caawiyay hadaad tiraahdid passive voice oo simple past tense waa sax she was arrested waa la xiray haddii aad tiraahdo she was arrested by the police booliskii ayaa xiray The cat bisadu was killed by the dog bisadi waa la dilay waa markaasaga eeygi lama dilin laakiin eeyga ayaa wax dilay the cat was killed eeyga bisadi waa la dilay you were seen by them way ku arkeen ama waa lagu arkay you were seen ayaa leedahay here we have we were beaten by you waana la qaraacay markaa leedahay we were beaten by you Two men, laba nin, and one woman iyo hal naag waa killed ayaa lagu dilay at number 4 number 4 ayaa tiri Ali and Fatima were promoted to the next class by the principal Ali iyo Fadumo waxaa loo dalacsiiyey fasalka kale maamulaha ayaa u dalacsiiyey Active voice markay tahay codkii caadiga he helped me wuu i caawiyey waxaan qaatay me subjectigeedan raadiyey oo I ah I was ay qaadataa I was helped waa li caawiyay ayaan passive ahaan u isticmaalay midda labaad the police boolisku arrested ha waa ay xireen she was arrested ayaa leedahay waa la xiray ayada midda saddexaad waxa weeye the dog eyga killed wuxuu dilay the cat waxaan soo qaadanaynaa the object waa cat bisada the cat was killed waa la dilay ayaan leeyahay the cat was killed by the dog They saw you way ku arkeen exactly Ali saw you Ali wuu ku arkay Abdi saw you exactly the teacher saw you macallinka wuu ku arkay waxa leedahay you were seen waa lagu arkay by them marka asaga they saw you you were seen Okay here waxa la yiri they killed waxay ku dileen two men laba nin and one woman iyo hal naag at number 4 number 4 ay ku dileen waxaan soo qaatay markaasaga two men laba nin and one woman iyo hal naag waa killed ayaa waxaa lagu dilay at number 4 siinkii ayaa sheegtay goobtii lagu dilay exactly the principal maamulaha promoted wuxuu u dilacsiiyey Ali and Fatima to the next class waxaan soo qaadanaynaa oo objective meesha ugu jirto Ali and Fatima dadka la dilacsiiyey waa iyaga Ali and Fatima were promoted to the next class by the principal ayaa leenahay simple past tense passive construction marka la isticmaalayo ama passive voice qaybtan ama weegan ayaa loo isticmaalaa and remember xusuusnow saddexdii kale aan soo qaadanay oo passive ka ahaa ee saddexda present ah thanks alif la kordhabe alif loos dhabe alif la goday